بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة وضولا لها قارئة خير كجعل لمانتين أحبابي وأن السلام يا ميل قصة عالم كي غلا سعتان إلهي سبحانه وتعالى يا مهدس كله مركز كان سعليي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله، شكر لله. سودا وهذا ولا لها قارئة خير كجعلوا دمانتين أحبابي وإن السلام يا ميل قصة عالم كي غلا سعتان. سودا وهذا ما أنت ومانين جمعة ومانين آدي فضل بدن ومانين تلسلام ترى حبيبك صلى الله عليه وسلم إن بدن أنكو سلنا نبي عليه الصلاة والسلام نور كلبض ويك سورة الكهف هاي المامنة كفا إيديسو oo maalin kastoo jimca akhriso suuratul kahfi, sidoo kale saacatul ijaabaan ducada la soo celineen ayaa ku jirta maalinta jimcada. ilaahay subxaanahu wa tacaala arrimahaaga u sheego. ilaahay wuxuu yidhi barya waa idinka ajiibaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu rabaa in loo tago aan ka faa'iidaysano walaalaha qaaliga ah. soo dhawaada. waa qisaskii saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam iiga barateen maalin walbo jimca inaan idin soo gudbiyo. ka faa'iidaysta walaalaha qaaliga. waa 10 qiso oo laga arkay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. sidan walaalaha qaaliga ay ugu horeysa waxaa ka sheekeeyay nin ganacsada. wuxuu yiraahday wadanka isu taga imaaraadka carabta magaalada Dubai ayaan ganacsi ka sameeyay buu dhahay. sanadii ugu horeeyay ganacsigaygii ayaan waayay, waa ku khasaaray buu dhahay. khasaaraha isoo gaaray dartiis ee xanuujiyay ee hurdada la seexan waayay, sida darteed ayaa wuxuu dhahay ganacsi oo dhan ayaan ka baqi jiray buu dhahay. markaan damco inaan wax sameeyo waan baqi jiray oo wuxuu yiraahday inay khasaarihi oo kale igu dhaco ayaan ka baqi jiray. saaxiibkay ayaa wuxuu igu yiri maxaa u tijaabin weyday oo ilaahay ugu tagi weyday saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. habeenkii soo kac kunjeer oo saliga nabiga akhrisa buu dhahay. markaad seexanaysana sidoo kale saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam akhriso. ninkii wuxuu bilaabay buu yiraahday inaan wuxuu yiraahday wax yar gudahood markaan muddo yar aan wado saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu qalbigayga degay buu dhahay. cabsidii inay iga baxday bishii xigtay buu dhahay. bishii aan bilaabay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan saxiixay heshiis weyn oo aan ganacsi ah baan galay buu dhahay, oo lacaga badan aan ku bixiyay buu dhahay. cabsidii way iga baxday. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku qancay dhibaatadii iyo wixii soo gaaray. kadibna wuxuu yiri aaminaad ayaa igu dhalatay oo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa sabab u ahaa buu dhahay inuu ii furmo albaabka barakada farxadda qalbigaygu dhahay. ganacsigii dambe waan ku faa'iiday buu dhahay, laakiin midka hore ku khasaaray. dad badan baa waxaa dhacda walaalaha qaar haday guur ku fashilmaan, hadii ay ganacsi ku fashilmaan, hadii wax ku fashilmaan inay dib dambe u sameeyeen. marka wuxuu yiraahday aniga wixii igu caawiyay markii la weydiiyay inuu ganacsi dambe iyo heshiisyo dambe ganacsi galo wuxuu yiraahday sabab u ahaa saaxiibkay oo ii sheegay saliga nabiga calayhi salaatu markaan saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam sameeyayna bishii ka dambeysay waxaan saxiixay heshiis ganacsi oo weyn oo lacaga badan iga baxeen. mana aan ku fakirin wuu ka burburaya. ilaahay qalbigaygu wuu soo furiyay barakada iyo farxadda qalbigayga wuxuu ii noqday walaal saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. ka faa'iidaysta walaalaha qaaliga ah. qisadaana waxaa ka sheekeeyay oday waayeel ah. wuxuu yiraahday waxaan ku noolaa wadanka Kenya magaalada Nairobi. wuxuu yiraahday markii aan weynaaday oo aan da' noqday buu dhahay waxa iga tagay buu dhahay oo iga dhamaaday dhaqaalihiina iga dhamaaday. waxaan la kulmay buu dhahay in caruurtaydii mid ay iga tageen buu dhahay. mid kasta noloshiisa ayuu iska raacday. anigana waxaan la noolaa buu dhahay reero ayaan la noolaa, reero islaameed oo qaraabo ah ayaan la degay buu yiraahday. wuxuu yiraahday masaajidka ayaa iska aadi jiray. nin weyn oo wuxuu yiraahday waayeel ah ayaa wuxuu igu yiraahday adeer oo macni asaga adeer ugu aadanaa wuxuu badso saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. odaygii wuxuu bilaabay inuu habeen kasta iyo subax kaste uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku salinay siiqada gaaban allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad ayaa dhihi jiray buu dhahay وعلى آله وصحبه وسلم. wuxuu yiraahday waxa la ii sheegay laakiin culimadu waxay dhahaan sayyidina laba dhaho nabiyuna ayaa la dhahaa walaalayaal. sayyidina ma soo aroorin baa yiri ka faa'iideysta. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ayaa la dhahaa walaalaha qaaliga. marka wuxuu yiraahday ninkaani sidaas u dhihi jiray macnaheedu sida uu dhahay inaan wax ka bedelo ma rabo qisadii Soomaha saas u dhihi jiray buu dhahay. wuxuu sheegay ninkaasi inuu markuu bilaabay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam caruurtiisii ay dib ugu soo laabteen
oo midkoodba midka kale ay u imaanayeen carruurta iyadoo qaar dibadaha ay ka imaadeen qaar macnihii meelo kale ay ka imaadeen waddanka gudihiisa inay u wada imaanayeen magaalada Nairobi ay ugu imaanayeen wuxuu yiraahday waxaa dhacday wada in carruurtayda xataa igu taageereen dhaqaalo oo carruurtayda isoo biileen ayaa dhacday markaas nabiga calayhi salaatu wasalaam aan bilaabay uu yiri maasha Allah ka faa'iideysta walaalaha qaariga qisada iyadana waxa ka sheekeeya wiil dhalinyaro ah wuxuu yiri waxaan ku noolaa waddanka Sacuudi Carabiya ayaan ku noolaa buu dhahay shaqo la'aan ayaa igu dhacday markasta waan shaqo macnihii aan waayo shaqo aan daalo oo wuxuu yiraahday macnihii aan shaqo raadis ku soo daalo waxaan sameyn jiray buu dhahay inaan inta masaajidka galo aan halka isaga nafisi jiray waxa dhacday nin wadaad ah ayaa igu yiraahday markasta masaajidka joogtaaye ma ku sheego wax ku anfacaya marka uga sheekeeyay dhibaatada ay haysataa wuxuu ii sheegay wadaad saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan sameeyo waliba aad u badiyo kun ugu yaraan inaan sameeyo wuxuu yiraahday subaxii baan sameyn jiray habeenkii baan sameyn jiray maasha Allah waxaan bilaabay buu dhahay 40 maalmood oo isku xigta inaan aad iyo aad saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam badiyo biniya inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala igu siiyo shaqo wanaagsan wuxuu yiri Ilaahay wuxuu ii furay fursado shaqo mushaaraad fiican leh ayaan ku helay buu dhahay inaan fikirkaygu u fiicnaado inaan dadka dhex galay inaan markii hore wuu ciira waa niyad jabay masaajidka baa u carari jiray wuxuu yiraahday dadka ma dhex gali jireen waa dhuuman jiray ama guriga isku soo xiri jiray balse markii dambe wuxuu yiri Ilaahay wuxuu ii furay inaan macnihii maxaa dadka maxaa fikirkaygu furnaa dadkii oo macnihii dhex galay baa ii furantay buu dhahay qisadan walaalaha qaariga waxa ka sheekeeyay nin wuxuu yiraahday waxa ku noolaa waddanka Norway waxa dhacday buu dhahay waxaan ahaa nin dhalinyaro ah ku mashquulsan dhalinyaronimada labiska xun waxyaalaha ku mashquulsan buu dhahay markii dambe wuxuu yiraahday waxaan ogaaday fadliga saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam maana badin jirin 100 jeer oo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan sameyn jiray buu dhahay wallahi waxaan ka arkay buu qalbigayga oo dagay fikirkii iyo shakigii iyo wixii aan qabay iyo wixii aan ku dhex jiray iyo wixii aan ka soo baxay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu iga madoobeeyay waxaan helay cilmi inaan barto cilmiga kadibna wixii dacwada ayaan ku biiray Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyaalaha aan ugu mana sheegto Ilaahay macnihii aan Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ugu mana sheegto Ilaahay ugu soo hanuuniyay waxa weeye buu dhahay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam waana furaha barakada deganaanta qalbiga iyo hanuunka walaalayaal ka faa'iideysto dhahay qisadana walaalaha qaariga nin baa ka sheekeeyay ninkan wuxuu yiraahday waxaan galay buu dhahay ganacsi sharci darro ayaan galay buu dhahay waxaan ku noolaa waddan shisheeye waddankayga ahayn markaan ganacsiga sharci darrada aan galay buu dhahay lacago badan ayaan ku helay buu dhahay laakiin wuxuu mar walba dareemayay culays iyo cabsi ayaan dareemayay habeenkii ayaan maqlayay waxyaalo aniga dhanba isku buuqsanaa buu dhahay maxaadiro ayaan dhageystay buu dhahay sheekh uu ka hadlayo fadliga saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiraahday waxaan bilaabay buu dhahay inaan 1000 jeer saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam aan habeen kasta iyo maalin kasta aan ka aqriyo wuxuu yiri waan iska ooyayay wax yar kadib waxaan ku riyooday buu dhahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam markaan badiyay buu dhahay waxaan ku arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam riyo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu igu yiraahday qof qalbi wanaagsan baa tahay toobadkeen ayuu dhahay oo xalaal ku dhaqan buu igu dhahay aniga wuxuu yiraahday markii hore oo arrinkan igu dhacayay waa ganacsiga markaan galay dhaqaalaha badanna ka helay fikirkaygu marka wuxuu ii sheegay buu dhahay inaan ganacsigan ku jiro uu yahay wax xun wuxuu yiri waxaan bilaabay inaan ganacsigii aan iskaga dhex baxo buu dhahay wixii aan ka helayna aan si sadaqeeyo aan Ilaahay ku xirmo saliga nabiga aan badiyo salaadaydii aan ku dadaalo wuxuu yiraahday walaalayaal ka faa'iideysta saliga nabiga qisadaasaan ka arkay buu dhahay qisadana waxa ka sheekeeyay wiil dhalinyaro ah waxaan ku noolaa waddan kamid ah wadamada Yurub wuxuu yiraahday waxaan diyaarinay imtixaankii jaamacadda ayaan diyaarinayay wuxuu yiri si maskaxiyan ah ayaa la ii qabtay buu dhahay marka imtixaanka imaadaba waxaan dareemay hurdo marka iskuulka imaado ama jaamacadda imaado wuxuu dhahay aan soo gala galaaskana waan seexanayay walbahaar iyo cabsina waa la noolaa buu dhahay mar walbana waan guul dareysanay haday imtixaanka taa ku dhacay haday wax kala tahay waxa waa ku fashilmay hooyaday ayaa waxay ugu tiray buu dhahay hooyo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam badso Ilaahay baa ku
furay albaabada khayrka waxaan bilaabay inaan siiqada gaaban 500 oo jeer aan ka akhriyo buu dhahay subax kaste ayaan akhrin jiray buu dhahay alxamdulillah waxa dhacday imtixaankii ugu dambeeyay qalin jabinta inaan gaaray alxamdulillah su'aalihii waan ku guuleystay buu dhahay si sax ayaan uga jawaabay waan qalin jabiyay buu dhahay darajo aad u sareysa ayaan keenay markii la wareystay wuxuu yiraahday waxaan hubaa cabsidii iyo wuxuu yiraahday walwalkii wixii hayay ilaahay wuxuu iiga dulqaaday buu dhahay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam albaabo badanna ilaahay wuu iigu furay walaalayaal ka faa'iideysto dhahay qisadana walaalaha qaaliga ah waxa ka sheekeysay gabar baa ka sheekeysay gabadhan waxay tiraahday muddo 2 sano ah ayaan shaqo raadinaya dokumentiyadaydii waxay tiraahday meel kasta waan u diray bay tiraahday waxay tiraahday markasta oo macnaheedu waraaqada dirsado wax ii soo jawaabo ma lahan bay tiraahday waxaan ka maqlay sheekh ka sheekeynaya fadliga saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan go'aansaday bay tiraahday 5,000 oo jeer inaan saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ka akhriyo 10 maalmood oo xiriir ah subax kasta iyo garab kasta markaan akhrinayay tiraahday waxa ii soo wacay bay tiraahday dadkii aan waraaqaha u dirsan jiray isla markiiba shaqo ayaan galay oo helay bay tiri waxayna tiraahday gabadhaani waxa ii cadaatay bay tiraahday saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan lagu khasaareen ilaahay uu kuugu furay albaabo badan ka faa'iideystay tiraahday qisadan waxa ka sheekeysay iyadana gabar dhalinyaro ah gabadhan waxay tiraa waalidkay ayaa waxay rabeen inay guur igu qasbaan bay tiraahday oo guur xooga waxay tiraahday murug badan ayaan dareemay bay tiri waxaan ogaaday fadliga saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam marka ducada laga hormariyo marka la akhristaba waxay tiraahday waxaan bilaabay inaan saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam aan akhriyo ilaahay dhibka i haysta iyo guurka khasabka in la iga joojiyay tiri maalinkii waxa sameyn jiray bay 10,000 ka badan bay tiri walwal iyo murug waxay tiri 20 maalmood markaan waday tiraahday Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ii fududeeyay inay qoyskaygii fahmaan guurkii khasabka ahaana la iga joojiyo waxaana hadda waxay tiraahday ku noolahay bay tiraahday nabad wax dambe la iguma khasbin waxaan dadka ku boorin lahaa bay tiraahday ku daro noloshiina saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam si nolol macnaheedu aan murugo lahayn aan ciriiri lahayn aad ugu noolaataan bay tiri gabadhan dhalinyarada maasha Allah walaalaha qaariga ka faa'iideysta qisaskii aan kasoo diyaariyay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam intaasay ku egyihiin saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam dikri cadiima oo aad iyo aad u fadli badan ilaahay baana amray ku saliya nabiga calayhi salaatu wasalaam yiraahday nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiraahday hal mar oo nabiga ku salida ilaahay baa 10 jeer kugu salinaya salinta ilaahay kugu salinayo ilaahay ku naxariisanayo ku dambi dhaafi ciriiriga ka saarayo ilaahay maxay subhanahu wa ta'ala ku hiilinayo ducadaada ilaahay ku aqbalayo dhibaatada kaaga saari humumta dambigaaga ilaahay ku dhaafayo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam labada daarood baa lagu liimaanaa nolosheena aan ku darno ducooyinka ducadan saliga nabiga laga hormarin maqbuulo ma ahan iyo amaanta ilaahay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam dikra cadiima walaalaha qaaliga mar walba waa inuu noloshaada ku jiraa mar walba waa inaad ku dartaa dikrigaaga wardi ka yeelataa maalinka jimcaadana si gooniya habeenkeeda ayuu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam u badiya salinkay waa la isoo bandhigayaa asxaabtii waxay weydiiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam sida loogu soo bandhigayo nabigu wuxuu yidhi ruuxdaydii baa laygu soo celinayaa ilaahayna subxaana wa tacaala malag buu iiga wakiilanaya ummadayda salaanta iiga keena marka malagaasi uu salaanta keeno nabiga calayhi salaatu wasalaam ruuxdiisi lagu soo celinaya salaanta wuu ka radinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam ka warrama walaalaha qaaliga awoodaha ilaahay subxaanahu wa tacaala maasha Allah tabaaraka raxmaan ka faa'iideysa walaalaha qaaliga khayr iyo farxad baa idin wada rajaynaya walaal kastoo dhibaato haysato mid kastoo murugo ku jira mid kasta oo dambiyo ku jira mid walba oo qalbigiisu gubanayo xaaladaha adduunka iyo herarka adduunku way iska tira badan yihiin qofna ma jiro dhahaya 100% aniga farxad baa ku nool ma jiro laakiin qofkii dikriga la saaxiiba oo waliba saliga nabiga humumtana way ka tagaysaa dambigiisana waa lagu dhaafay hirarka adduunka waa isaga celin karaa adduunyada aad iyo aad baa walaalaha qaaliga ah qofku marxalado badan u maraa oo noloshiisa bedelaya marka hadaa saliga nabiga la saaxiibto ilaahay subxaanahu wa ta'ala murugada ka haday xataa ku soo marto wax weyn kulama ahaanayaan ma fahanto walaalaha qaaliga marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa weydiisanayna khayr iyo farxad waxa weydiisana kuwa ehlu dikr ilaahay naga dhigo kuwa maxaa la yimaada saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam muhiimada ugu sareysa ficilkii weeye kuwa ficilkii la yimaada oo akhriya saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam Allah naga dhigo
خير فرحت بين رجينا ولا لا قارقة اسكو سو دعينو أمد الإسلام كو دعينو ولا لهن رقص أو دعينو ولا لها صدقة الله بحية ولا لها قارقة هل كاسيدي سو سارية ماشي ولا لهن صدقة لو قدريي ولا لهن رقص بالكستة وجرسينا صدقة وحي أسك أرورنا جروبيا كأرورنا ولا الكهرباء inuu ka qayb qaato sadaqa watan ugu wanaagsan sadaqadana walaalaha qaali cajaa'ib bay leedahay walaalaheena dhibaatada haysata waa wada aragnay marka maxay ka faa'iideysta walaalaha qaaliga sadaqada